بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي ولا ليك الصوماليات ميل كستoo joogtiin وإن سلاميا seetihiin caafimaadkiina ka warrama xaaladihiina maasha Allah ana waa idin fiicanahay. Waxaan rabaa cashayr ayaan karsanayaa oo aad ugu fiican ciyaalka iyo dadka oo waayeelada ah. aad ayay ugu fiican tahay qofkii hooyadiis la joogo, aabihii oo waayeela, abtiga iyo habaryartii, yacni qof kastoo weyn oo waayeel ah oo ilkaha iyo dhibka uu macnaa cuntada adag ay dhibayso aad ayay cuntadan ugu fiican tahay. waa bariis cadde, waa bariiskii aan ku darsan jirnay caanaha oo aan si kale u samaysanahay. maasha Allah, caana booro ayaan ku karinaya iyo maraq. marka insha Allah ii soo dhawaada. ciyaalka aad ugu fiican tahay, ilmuhu way ku cayilaan, aad iyo aad cunto u fiican waaye. maasha Allah waaye. meeshan waxaan ku shubtay waa subda ama butter, adiga laba qaada meelahaas waa ujeedaan. digsiga ayaan ku shubtay, waa kululeynayaa. kabacdi markay kululaato waxaan ku shubanayaa bariiskii oo ii dhaqan oo ii nadiifsan oo soo qalajiyay. marka bariiska waxaa lagaa rabaa inaad si fiican isaga nadiifiso. bariiskan waxaa la dhahaa bariiska masriga waaye, waxaa ku qoran ruus masri. marka bariiska masaarida waaye, laakiin bariiska caanaha ayaan anaga dhihi jirnay. waa bariis caano, anaga kolley un sugo kuma samaysana, laakiin caanahan ku darsanaa. marka cuntadan aad ayay u wanaagsan tahay, ha looga faa'iideeyo ciyaalka, hooyooyinka, aabayaasha, abtiyaasha, dadkii waayeel u joogo dhan. bariiska ayaan ku shubanaya. bariiska waan soo dhaqay, waan soo nadiifiyay, waan ku shubanayaa. wixii kaloon ku darsan doona insha Allah waa isla arki doonaa insha Allah. hadda waxaan idin tusayaa caano booro waaye. caano booro ayaan ku samaysanayaa. bariiskan waa soo dhaqa, waad ujeedana bariiska kale inuu soo ekayn. intaan soo dhaqay soo nadiifiyay ayaan soo qalajiyay. cabaar ayuu wax ku jiray maxay ti ii sheeg basta miirka ama caano miirka, kuwa oo lagu miirto basta miir iska dheh. وسدح gelinaysaa buharaad iyo xawaajiyaal iyo wuxuu kaaga baahan malan. basal kuma dareysid, wax kale kuma dareysid. subaga caadiga hadda haysato maasha Allah aad ugu fiican yahay, ku samaysan kartaa. cuntadan cunto aad ugu fiican ciyaalka. cunugaagu 8 bilood markuu gaaro afka u galgelinaysa, shurbadoo kale waaye. maasha Allah waa cunto aad u wanaagsan, ha laga faa'iideysto. dhib badanna mala. meeshan xawaajiyaal ayaa iigu jira. waxaa halkaas iigu jira waa paprika iyo shiishiid iyo filfisha madow iyo chicken masala. afartaas shay ayaa iigu jirta iyo milix. waa filfil iyo shiishiid iyo paprika iyo chicken masala iyo milix. intaas digaag, hal xabo nus digaaga ayaa biyo ku soo kariyay. nuskas digaaga waa isku celinaya, waa ujeedaa. nuska digaaga biyo ayaan dabka la saaray walaalayaal. wax yaroo waxaan ku daray waa kana maraq ayaan ku darsanayaa. nus digaaga ayaan dabka saaray. marka hore biyo ayaan la saaray. biyo marka la saaray waxaan ku daray hal xabo maajiya iyo wax yaroo heele, wax yaroo qorfa aan ku kariye bas. wax kaloon ku dara malahan. waa kana hadda waa kusoo shubtay, waa ujeediin. biyihii oo digaaga aan kusoo kariyay oon kasoo miro nadiif ah ayaan ku shubtay, waa ujeediin. biyihii wuu dhammaystay soo maahan. markuu biyaha dhammaysto waxaad qasanaysaa caano boorihii. waa 7 qaado ama 8 qaado caano booro ah. caanaha caadiga kuma darsan kartid, laakiin caanaha dhanaanka ah iyo sabaadiga ama yoogartiga waad ku samaysan kartaa, mashaakil malaha. laakiin caanaheena caadiga oo kale laguma samaysan karo ilaa caano booraha iyo sabaadiga ama yoogartiga iyo waxaad ku samaysan kartaa caanaha dhanaanka. laakiin kuwan ayuu aad ugu macaan yahay markaad caruurta siinaysid. kuwan caano booraha ayay ku jecel yihiin. caano booraha wuxuu ahaa 7 qaado meelaha 8 qaado. 2 koob ama 3 koob biyo ayaad ku qasanaysaa, waa isdhex gelinaysaa, waa isku qasaysaa. mar walba dabkaad aad ugu gaabinaysaa, waa kusoo noqonaysaa 2 daqiiqo ka bacdi. adiga adoo soor karinaya camal waaye. soor camal ayuu noqonayaa. maasha Allah cunto aad u fiican waaye. kolley annaga waxay tii sheeg ciyaalkaygu way jecel yihiin. marka insha Allah adigana ka faa'iideysta. waa ka sidaan ayuu isu dhex galay. soona dhawaada dhammaantiin. waa kasaas ayuu isu dhex galay maxaa caanihiisii, maxaa subaga caadiga hadda haysato. subaga caadiga aad ayuu ugu macaan badan yahay, laakiin anigu waxaan ku darsaday subda ama butter. marka maasha Allah soo dhawaada. maraqa xataa haddaad u baahnayn, maraqa xoolaha waa ku samaysan kartaa. hilibka xoolaha waa ku samaysan kartaa. hilib waad ku samaysan kartaa, wuu ku macaan yahay. laakiin sidaan idiin sheegay ciyaalkayga ana maraqa xataa way urinayaan, waxay leeyihiin wixii lagu kariyo sidii walba ma igu cunayaan. laakiin hilibka maasha Allah maraqiisa aad ugu macaan badan yahay. laakiin meeshan ciyaal waxaan ku hay ilaahay khayr ha ii siiyo. hilibba aan lagu sheegi karin subxaan Allah. digaagaas iyo samaga iyo malayga iyo waxyaabahaas maahan. waa karaasaan ayaa cuntada noogu soo baxday walaalayaal. waa kaas maasha Allah. digaaga yarka ahaa xawaajiyaasha idin tusayay. digaaga ayaan soo marmariyay,
furunka ayaan soo geliyey. meeshan waxaa iigu jira shata ama basbaaska oo jaa-iska ah. raalli ahaad haddii aan soomaaliga qaldaayo, iga raali noqda insha allah. waa kana saan ay cuntada noogu soo baxday, sidaas quruxda badan ayay noogu soo baxday. macaankeeda layskama dayn karo, ciyaalka ha loogu dadaalo. hooyo waayeel hadday joogto, hooyo hadday kuu joogto siiso, insha allah way kuu cunaysaa biidni illaahi kariin. aabba waayeela, caruurta 8 bilood meesha lagu gara afka u gelgelinaysaa. hadda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fiidiyoo dambe oo xiiso badan insha allah intaan ayaan idinla qaybsaday.